Assalaamu calaykum daawadayaal. Marka ay noqoto ciidamada, dal kasta waxa uu ku dadaalaa inuu ciidamadiisa siiyo tababarka ugu wanaagsan uguna adag, si askari kasta awood ugu yeesho inuu ka gudbo xaalad kasta oo soo wajahda, isla markaana cadowga uga guuleysto. Haddaba barnaamijkan waxaan idinkula wadaagaynaa tababarada ugu adag uguna halista badan ee ciidamada la marsiiyo muddada ay tababarka ku jiraan. Tababarka bambo isu dhiibka. Tababarkan waa mid aad u halis badan, sababtoo ah waa mid badana askarta sameynaysa ay dhaawacyo ka soo gaaraan. Inta aan la bilaabin tababarka, waxay askartu qodaan god balliciisu yar yahay. Intaa kadib waxa ay galaan saf wareeg ah, waxayna bilaabaan inay bambada isu dhiibaan iyaga oo qaadaya hees. Askariga heestu ku dhamaato isagoo bambada haya ayaana furka ka jaraya kuna tuuraya godka. Balse waxyaabaha khatarta keena ayaa ah in askariga bambada tuuraya uu khalkhalo, kuna tuuro bambada meel aan godka ahayn, iyo in aan askartu dhulka beer ka dhigin ka hor inta aan bambadu qarxin. Muuqaalkii ugu horeeyay ee tababarkan muujinaya waxa uu soo shaacbaxay sanadkii 2012 waxaana sameynayay ciidanka Shiinaha. Tababarka jidkii samada. Tababarkan loogu magac daray jidkii samada waa tababarka ugu dambeeya tababaro muddo 10 asbuuc socda, kuwaas oo la marsiiyo ciidamada militariga ee dalka Taiwan. Waa jid dhererkiisu gaarayo 50 mitir, kaas oo laga buuxiyay dhagxaan fiiqfiiqan. Askari kasta marka uu bilaabayo tababarkan waxa uu xabadka ku dhufanayaa dhulka, intaa kadibna waxa uu bilaabayaa inuu ku dul xamaarto dhagxaanta korkooda. Jidkan ayaa leh 10 meelood oo lagu nasto, waxaana muddada nasashada askartu sameeyaan jimicsiyo kala duwan. Marka dhagxaantu dhaawacdo askariga, waxa meelaha dhaawacmay lagaga shubaa biyo cusbo leh si askarigu u dareemo xanuunka. Maalinta tababarkan waxa loo yeeraa qaraabada askarta si ay dhiirigelin ugu noqdaan. Intaa kadibna waxa askari kasta la siiyaa bilad ama xidig, taas oo muujinaysa inuu si rasmi ah uga mid yahay ciidamada militariga ee Taiwan. Tababarka cabitaanka dhiigga kobraha. Tababarka loo yaqaan Cobra Gold ama kobrihii dahabka ahaa waa tababar sanad kasta lagu qabto boqortooyada Thailand, waxaana ka soo qayb gala 7 dal oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Japan iyo Malaysia. Haddaba tababarkan ayaa askarta lagu tababaraa kaymo aad u waaweyn, waxaana la baraa sida kaymaha looga dhex dagaalami karo looguna noolaan karo, sidoo kale sida miinooyinka looga saaro kaymaha. Balse qaybta ugu la yaabka badan ayaa ah in askarta la baro xayawaano iyo dhir ay ku noolaan karaan haddii cuntadu ka dhammaato. Waxaana ugu caansan cabista iyo cunista hilibka maska cobra iyo cunista dabaqalooca. Askarta ayaana wadaagta dhiigga iyo hilibka maskan, waxaana la sheegaa in maskan uu yahay cunto iyo biyo dhammaystiran. Sidoo kale in haddii maskan oo ku badan kaymaha Aasiya uu ku qaniino, aanay suntiisu waxba ku yeelan haddaad cabto dhiiggiisa. Tababarka in xabadka laga toogto askarta. Ciidamada ilaalinta ammaanka ee Ruushka loona yaqaano FSB waxa jira qayb ka mid ah oo loogu talagalay ka hortagga argagixisada, waxaana la siiyaa tababar gaar ah. Qaybta koowaad ee tababarkan waxa askarta loo xiraa jaakada xabadda celisa, waxaana laga toogtaa xabadka. Ninka muuqaalka ka muuqda waa Andre, waa sarkaal ka tirsan FSB. Waxa uu askartiisa ku amray inay xabadka ka toogtaan, sidoo kale iyaga ayuu tooganayaa. Lamana ogola inaad wax baqdin aad samayso, sababtoo ah haddii aad khalkhasho waxaad xabadda qofka kaga dhufan kartaa meelaha aan daboolnayn sida madaxa iyo gacmaha. Qaybta labaad ee tababarkan waxa rasaasta laga ridaa masaafo aad ugu dhow wajiga askariga, sida dhagaha iyo mararka qaarkood in dharkiisa laga dhex saaro xabadda. Sidoo kale waa lagu qayliyaa askarta marka ay toogashada sameynayaan. Waxyaabahaas oo dhanna waxa loo sameeyaa si aan askarigu isugu dhex yaacin marka xaaladan oo kale ku timaado. Tababarka biyaha qabow. Waxa jira cilmi baarisyo sheegaya in dadka qaar ay si dabiici ah meelaha qabow ula qabsan karaan, halka kuwa kalena uu qabowgu u horseedi karo caafimaad darro weyn. Balse tababarkan ayaa ah mid ay khasab tahay in la marsiiyo askari kasta oo ka mid noqonaya ciidamada badda ee Mareykanka. Tababarkan oo qaybo badan ka kooban ayaa waxa ka mid ah in askartu habeenkii oo dhan biyaha badda ku jiraan iyaga oo jiifa gacmahana is haysta, halka maalintiina ay sameeyaan orod aad u dheer iyaga oo taayirada baabuurtu dhexda ugu xiran yihiin, ama iyaga oo saxiimadahooda madaxa ku sita. Isku soo wada duubo, tababarkan ayaa ah mid lagu kala saaro askarta kartida leh iyo kuwa kale, waxaana badanaa askarta ugu fiican laga dhigaa saraakiil. intaas ayaanu idinla wadaagna saaxiibayaal maanta. Haddii aad muuqaalka wax ka faa'iiday, fadlan like-ta ha ka ilaawin, annagana waxa inoo tahay dhiirigelin. Mahadsanid.